عليه وسلم وير waxaan rabaa inaan ku daro faahfaahin yar warsaxaafadeedkaas odayaasha golaha dhaqanka beesha Raaxaji Saleemaan go'aanka maanta ka soo baxay in yar hadaan ku daro waxa weeye go'aankii aan ra'iisul wasaaraha ku wada hadalnay wuxuu ahaa markuu sarfeynka dhamaysto ummadda ogaado cid walba waxay qabto ogaado inuu dib ula laabanayo cid walbana ay ogaanayso wax laga loo dhan yahay oo lagu wada raali yahay oo la isla og yahay inay noqonayso wixii maanta galmudug lagu dhisaya inta markaan sugaynana waxaan ogaanay inuu ka baxay ra'iisul wasaaruhu ballantaas kooxdii dhuusamareebeed oo yaraydna uu gacanta u geliyay masiirkii iyo maamulkii ummadda wixii la rabo tagrifalana la sameeyay saa darteed waxaan cadaynaynaa waxa dhuusamareeb laga yagleelay inaynaan shaqo ku lahayn inaynaan mid ka ahayn inaanaan tegahayn inaan cid nagu matalaysaa jirin intaasaan rabnaa inaan cadayno waxa meesha laga sameeyay gobasha dib u heshiisiinta laga furaanan u socon guddi hadday tahay iyo hadday gogol tahay cid aan wax ka keensanay iyo cid aan tala ku leenahay iyo cidna laga talageliyay midna ma jirto dhaan cid wadatana iskama raacno anna waxaan wax ka ognahay aan hadii la ku roon yahay oo aan wax ku leenahay taladooda iyo tigaadooda iyo macnahooda wax ku leenahay ka qayb gali karnaa laakiin safar cid wadata inaan iska raacno macna noomale sidaasaan loo ku talagelin saasaan shaqo ugu lahayn intaasaan rabnaa inaan ogeysiis ka bixino waxaan leenahay haddii dib u heshiisiin iyo wanaag iyo dad isku keenid laga rabo meel ummaddu u fsinan oo aan kooxo gacanta ku haysan oon urur haysan oon xisbi haysan oo badan oo magaalooyin oo galmudug ka tirsanaha badan meeshii la doonaha la geeyo inkasta waa loo dhigo laakiin ma dhacayso inaan anoo maanta urur u hoos tagno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu inaan hadal laabnayn hadalkii wuxuu ku dhan yahay warsaxaafadeedka la soo saaray ee soo saareen beesha reer xaaji Saleebaan sida dhulka ay degaan haddaan magacaabo afka dacdheer iyo afka hobyood meelaysan deganayn male intaas oo saas degan maanta waxay u dhan yihiin warsaxaafadeed sida dacdheer sida meesha la yiraahdo biyo guduud sida duculey sida cadaado sida baxdo sida godin labe sida baasha la yiraahdo gidhays sida dabagalo sida mareer gur baash maxay ahayd muxuu ahaa adeeg kibir sida ardo sida muxuu ahaa meesha la yiraahdo maarsamage sida macayl garas bahalkii la oran jiray muxuu ahaa garas el garas sida muxuu ahaa xillabi sida muxuu ahaa amaara sida muxuu ahaa ceelhuub sida meelka sida hobyo meel kasto ay ku taal waxay magalabtay isku raacsan yihiin sidaan oo maxay tahay waxay tahay inay shirkaas sida saxaafadeedku lagu ka aqrinayseen ama odayaashuba sheegeen in warkoodu ku samaysan yahay kow marka hore madaxweynuhu wuxuu ku baaqay oo afkii wuxuu sheegay oo ku bixiyay war madaxweyne waa dikreete wuxuu bixiyay in baarlamaanku yahay magaalada Cadaado hakad waa yimid waxa yimid ra'iisul wasaarihii baa yimid waa ballanay wuxuu nala soo galay reer tala ku noolo waa tashanayna waana isku imaanayna wax la goyn karaana ma jiraan reer tala ku noolo caabudu aquu tagay wuxuu yiri reer gabdha quruxow reer toosano waa isku soo noqonayna waana isku imaanayna wuxuu tagay eelkii la oran jiray xeraale culumadii yeey reer diin ku noolo waa isku soo noqonayna waana isku imaanayna hakad intaas markuu yiri wuxuu tagay dhuusamareeb markuu habeen moogaa xeraale habeen salaadii wuxuu ku dhawaaqay meel walba wax walba xawaale wax walba bixiyay wuxuu reebay lama arko gobasha uu nuugu yeeray waxa uu dhigaya maxaa dhaqan muxuu xagee wax geeyay meeshu wax geeyay waa meelma anugu urur iyo anugu dawlad muxuu dhuusamareeb iyo midna taaban maaye ra'iisul wasaare aday ku taal waxaad ku tala gashay galmudug inaad kala dirto galmudug marka 12 qabiil
bay ka dhaxaysaa ayaga waxa u quman inay tashadaan kana tashadaan danahooda 11 qabiil ay u dhaxaysaa waxaan kaloo sheegaynaa dib u heshiisiin diidi mayno sida odayaashuba u sheegeen waa inay ka dhacdaa meel nabdeed oo la isugu imaan karo oo 11 beelood ba imaan kara hakad midda kale la diidi mayno galmudug dhisid iyo maamulka awal baa madaxweyne wuxuu bixiyay baarlamaanka uu bixiyay meel buu siiyay meeshii uu siiyana sidii bay u sugaysaa waxaan leenahay ra'iisul wasaare adiga qasaye ninkii tolayo janjali adigu ka tali aday ku taal adaa kala diray saad isugu keeni lahayd ha ku rafaadi aniga waxa ila quman inaadan isku keeni karin waayo ninba meel baad ku xirtay saad u xirtayna u kala maqanta beeshaasi warsaxaafadeed ka soo baxay waxaan daba dhigaynaa annagu inaanaan aadaynin gogosha la dhigay dhuusamareeb midda dib u heshiisiinta inaanaan aadayn midda doorashada inaanaan aadayn toos ay keentay dowladda federaalka ra'iisul wasaaruhu inuu ku tuntay dastuurkii iyo nidaamkii ay galmudug ku heshiiday qaybsiga ahaa awood qaybsiga inuu ku tuntay uusan waxba reebin wuxuu leeyahay laga soo qayb galo doorasho baasha dib u heshiisiin maxaa looga soo qayb galaa wax yaalaaba ma jiraan meel maran oo urur uu siiyo wax walba oo uu yiri neefkii inta meesha ku qaday adaa le lagi neefkii lugtii adaa leh hebla adaa leh oo wixii ku dhameey nimanka ugu yeero gudiga uu leeyahay kaalay dib u heshiisiin sameeya maxay sameeyaan oo qaybshaan qofkii wax tabta oo gar u hela inuu maaragtay wax la dhaafiyay ama uu waay awood qaybsigii uu lahaa maxaa u haro la siinaya maxaa u haray nimanka uu keen waxaan leeyahay haas ku soo lugoynina meel qallalan oo uu dadkii wixii ay lahaayeen uu qolas urur siiyey ayuu idin kugu yeereen ha ku fashilminina waxaan leeyahay gudiga saasaan ula ballamayaa waxaan leeyahay ka jooga waxba kama helaysaan ummaddu yaysan idin eedayn sharaf baad ummadda ku dhex leedihiin magac baad ku dhex leedihiin galmudugna waxaa ku tuntay ra'iisul wasaaraha asagay aabba leedahay asagaa baabiiyey wuxuu ugu talagalay inuu urur hoos geeyo ummaddii masiirkeedii iyo horumarkeedii iyo dhismihii galmudug waxaan leenahay annagu marnaba ka soo qayb geli mayno meel urur joogo waxaan ogolnahay inaan beelaha wax la qaybsanno galmudug ay beelu ku qaybtamaan meel nabada lagu qaybtamo salmugiis loo fariisto nin walba maxaad leedahay la yidhaahdo laakiin ma ogolin in urur gacanta loo geliyo ururna annagu kama tirsan ururna maahay waxaan nahay beelaha habargidir dad qayb iyo qoonto ku leh intaas warkii ku koobo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sala allahu calaa sayidina muxammadin wa calaa aalihi wa saxbihi wasalam odayaasha golaha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan fadhi ay ku yeesheen maanta magaalada cadaado dood dheer iyo falaqayn ka bacdii waxay soo saareen war-saxaafadeedkan maanta oo ay taariikhdu tahay 20kii bishii 7aad 2019 gogosha dib u heshiisiinta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka furtay magaalada Dhuusamareeb waxay beeshu go'aan satay in aanay ka qayb gelin sababtuna waxay tahay madaxda sare ee dowladda ayaa kaga baxday dhammaan ballamihii hore ee ay u ballan qaaday beesha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhuna uu xaqiijiyay in ay tahay golihii baarlamaanku inuu yahay magaalada Cadaado ra'iisul wasaaruhuna uu safarkiisii u ballan qaaday go'aan loo midaysan yahay inuu ka soo saari doono 11 qabiil markii uu sarfayga u dhamaysto sidaas awgeed oo go'aanka bedelay labo waxaa lagu tuntay lana baabi'iyay dastuurkii qaranka iyo kii galmudug lagu dhisay kuna ballameen 11 qabiil lana qaatay koox awalba ka soo horjeeday dhismihii galmudug 2015 dhammaan beelaha galmudugna kala gaarsiisay dhibaato aan laga heshiin saddex beeshu waxay cadaynaysaa inaanay diidanayn dib u heshiisiin in loo sameeyo beelaha galmudug waxayse soo jeedinaysaa in ay ka dhacdo
meel ammaan ah oo ka madax bannaan gacan kooxeed. 4 beesha reer xaaji saleebaan waxay doonaysaa in doorashada galmudug ka dhacdo xaruntii baarlamaanka ee madaxweynuhu uu asteeyey ee magaalada Cadaado. beeshu waxay taageeraysaa kana qaybgelaysaa gogosha gurigeeda taalla ee shirka baaweynta Habargidir uga socota magaalada Hobyo. sidaas awgeed wixii go'aana oo ka soo baxa ayay qayb ka tahay insha Allah.